من أجلك يا فجر الإسلام كم تحلو في الدرب الآلام بجلالك تصطبغ الأحلام تتفتق بالوعي الأفهام وتعانق طلعتك الأيام من أجلك يا فجر الإسلام من أجلك يا فجر الإسلام من أجلك يا وحي القرآن فتعالى صيحات الميدان من أجلك يا وحي القرآن فتعالى صيحات الميدان من أجلك ينتفض الإيمان من أجلك الحمد لله على إحسانه والشكر له ربي على تفضيله وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد ولا ليال وحين أفردنا إن أين كدغيسنه فضيلة شيخنا الشيخ عبد الناصر حاج أحمد حفظه الله تعالى موضوع عنوان كيسويهي نبذة عن سير الصحوة الإسلامية في الصومال جماعة الاعتصام نموذجا ولا ليال موضوع عاسي شيخ أيا إن شاء الله تعالى إنو فاهن دونه وحانا كدن بين دونته قدر أما مساحة في عن أو نقاشك يا أسئلة الشيخ وقصو قد بسان لكن وحان براروجنا إن أي أسئلة كوكوبناته موضوعا كلمة أي كهد لصه وأي هديك لا أقفل بسؤاشي وشيخ ينو ويدي وربي وكانه فتاوي يسبدلسا لقاقنا عنوان كيسي ماشا وكبحيا قضب كاسي وبراروجين مهمة وأنو جعلناها إخوة إنay ku baraarugsanadaan أسئلة هالنقطة موضوعا أي نكهد لنا متكد الوريقسة بارك الله فيكم ونرحب بفضيلة الشيخ فليتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم ما بعد كورنك لغا ورمو تاريخي صحوة وحديث أما ورآض دير ووقت بدن قادنية لكن إن شاء الله تعالى كلمات كوبا أيان كورن دونا كدبنا والشيكيسان دونا إذن وحا هيسان مسودي دون تاني سؤاله maxaynu mawduuca uga hadlaynaa saxwada islaamiga ah ka warankeedu muxuu daaran yahay muxuu faa'iideynayaa wuxuu taraya waxa weeyaan saxwadu lafdigaas oo hadal ka jiro isagu waxay la tahay isticmaalkiisu ayma badan baa isticmaashay oo shay iska curfiya buu noqday waxaa loo jeedaa uun dadka isxilqaamay majmuuco ka mid a ummadda oo dadaalay oo isu tegay oo khayr ka shaqeynaya dacwada kitaabka iyo sunnaha faafinaya hawshay ku jiraan oo waa wax dhacdooyina oo taariikh soo martay oo taxana ah oo ragba mar wadeen arrintaasi markaa waxaa loo baranayaa oo daraasaynteeda looga jeedaa in cidaad iyo cibar laga qaato waayo taariikhdu waxbaa laga faa'iidaysanaya wixii wanaagsan ay la qabtay ee saxmayna waa lagu dayanaya oo waa la raacaya wixii bani aadamku ay qaldeen ee ay khada uga dhacayna
waxay cibreedu noqonaysaa in laga leexdo laqad kaana fi qasasihim cibratun liuli lalbaab waa kaa lihi subxaana wa tacaala qasaskii qur-aanka markuu ka sheekeeyey ummadihii laga warramay waxaa ku sugan cibro iyo wax ku qaadasho dadka caqligana ayay ugu sugan tahay marka qodobkaasi qodobka laga faa'iday uu ka mid yahay waxaa kaloo ka mid ah in ay muhim tahay in muraajacaad laga sameeyo dadkii hawsha soo waday ee khayrka ka shaqaynayay haddii wax ka xumaadaan oo wax ka qaldamaan inay isa saxaan oo kitaabkiiyo sunnaha waxay khilaafeen dib ugu noqdaan oo istoosiyaan oo mar kastaba la isqiimeeyo waa arrin runtii waajib sharciga ah waayo naqdigu iyo isa saxu diinta ilaahay buu ka mid yahay oo dib in laysu muraajaceeyo ayaa diintu sugaysaa oo qofku wuu qaldami karaa allah subxaanahu wa tacaala baa nebigiisa ku canaananaya wax yaroo nin saxaabada ka mid a oo dhamcayn wax ka qaato oo ka yar jeestay qolo kale ku yar mashquulay baa lagu canaananayaa rasuulka cabasa watawallaa an jaa'ahu alacmaa wamaa yudriika lacalahu yazakkaa aw yadakkaru fatanfacahu dikra rasuulku waa la saxaya suuradii muuqaalkiisa ka muuqatay baa la cabirayaa inuu wejigii kuuday oo wejiga ururiyey waa lagu canaanaya waa la saxaya rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh rasuulka saxaabadiisa wuu saxayey oo marka hawl ay ku jiraan qof hawl galay oo khayrkii iyo diintii ka shaqaynaya waxa weeye waa qaldamaya khalad waa ka dhacaya oo saxaabigii Khaalid ibn Waliid ah markii la diray nimankii mujtamacii reer banu jadiima soo islaamay ee yidhi saba'na ereygaasay yidhaahdeen oo iga jeedaan yani waanu hoggaansanay oo islaamnimadii baanu soo gallay ayuu laayey raggii uu u dhiibay ninkii wax soo qafaayna wuxuu ku yidhi nin walooba ninkaaga dil waa kii cabdillahi ibn cumar laha anigu yani iyo ciddiga tala qaadataa toona dili maayaan cidday hayaan ilaa rasuulka aan u tagno rasuulkii baa loo keenay salawaatu ullahi wasalaamu calayh rasuulku aad buu arrintaa uga xumaaday hadal macruufa fi saxiix albukhaari baa xadiisku ku sugan yahay waa kii rasuulku lahaa allahuma inii abra'u ilayka mima sanaca khaalid ilaah waxaan kaaga bari ahay falka uu sameeyey khaalid marka khaalid lagama baraa'a qaadan laakiin falka qaldan ee ka dhacay saxaabiga ayaa laga baraa'a qaadanaya oo taa markaa macnaheedu waxa weeyaan in daraasada noocan oo kale ah in aad loo daraaseeyo dib laysu eego waa arrin runtii sharci ah oo saxwadan ama jamaacatul ictisaam iyo juduurteedii meesha gelaysa inu caawa yar taaban doono manhajkaasay aaminsanaayeen oo in badan ay ku socdeen waxaan isweydiin karaa maxaa keenay saxwada musawaqaadka saxwadan ama jamaacaad kacay ee diinta isu xilqaamay waxaa sababay ee keenay maxay tahay arrintaasi isdultaag bay leedahay waayo daayartu aad ulama socdaan awdaacdii jirtay iyo xilliyadii waxaanay soo baxeen ama isxilqaamkani u dhacay maxaa yiilay adduunka awdaacdu see loo noolaa maxaa jiray arrintaasi waa arrin muhima in la isweydiiyo waayo waxaa la yihahda marka intaadan odhan ba horta jamaacadin ma saxan tahay maxaad ma qaldan tahay macaynkan horta wax badan inaad ogaato oo waxaa la yihahda alxukm cala shay farcun can tasawurihi oo markaa shay xukumayso xukunkaasi wuxuu farc ka yahay suurada saxa eed waxaa ka haysato oo waa masale runtii sharci ah oo u baahan mar kastaba dadku inay daraaseeyaan marka la rabo in wax la qiimeeyo oo ibnuqayim raxmatullahi caleyh kitaabkiisa iclaamu lmuwaqiciin la yidhaahdo wuxuu ka hadlayey oo tilmaamay ninka had iyo goor u fatwooda dadka maxaan ku rahay iyadoo caraaftooda iyo azminada waqtiyadooda iyo amaakintooda ay kala duwan tahay oo xilliyadu kala duwan yihiin wixii naqliya soo raray uuna kitaabu ku arkay daliil wax walba saaraya oo halkaa markaa watiiro waaxida ku wada ummadda ninkaasi dadkii waa lumiyey buuri oo wuxuu ka dhigan yahay ninkii dhakhtarka ahaa ee dhakhtarnimada aan aqoonin ee kitaab uu yaqaano un hal kitaabu mala haystaa oo wax ka daweeyaa cudur kastoo loola yimaadaba halkaasunbuu rogaa marka hadalkaas weedhaas uu isticmaalay waa shay muhima oo qaacido sharci ah arrintaa markaa muhiimadeedu waxa weeyaan inaynu ogaano bal wadcigu suu ahaa sidee loo noolaa ummaddu say ahayd saxawaadkan islaamiga soomaaliya o kaliya mayahan somalia waxay ka mid tahay ummadaha caalamka islam ka mid tahay kacdoonkani mar buu wada kacay caalamka waxaa jirtay xilli dacfi weyn iyo burbur weyn ummadda ku dhacay waa xilligii isticmaarku
وعالم كإسلام قابصدي وحلقي خلافة أمة إسكو هيسي الخلافة العثمانية اللورنشري أو دين تأتاجنيد واحد كستو خايل بيسكت شرين لكن أمة يعني أورورين يسي أو حلقي مسؤولية دين تهيسي والدولة النمادو وحويان وأمة الدين تيد إلا هجاتشيو أي دولة تاجتها ما كان بربرتي أرنتاس وضع عاضهم بمركز شري حاجة تدين كأمة وحياة هيد طرق الصوفية أي آب انتشاري والصومالي وحي كمل العالم كله من هاي صوفية وضروضة كلا الدول قادرية ده مصالحية ده أحمدية ده دندراوية ده زيلعية ده طرق فربضان وكلا الدول والنوع نوعه يقولوا هذا بس كلا درارين النوع تصوف كودي الحلاف كوتشري لكن وحي هاين كواس بأمة علماء وها وقرنيسان كتابك مناقب كأها الفيوضات الربانية وكتابك مركا كذا الله يستو ودودو آخرين والدين كديجين واحد شرك كبوحة انحراف ركب ضرودي آخرين وقرنيا وحولي توصل بنا في كل هول وشدة أغيثك في الأشياء طرا بهمتي أنا لمريدي حافظ ما يخافه وأحرسه من كل شر وفتنة جهلين معين كلام كلي يعني استغاثة لغير الله وديموتشني وحيا ما كان دي الجروسان كريمين مريدي تمسك بي وكن بي واثقا لأحميك في الدنيا ويوم القيامة يقول لك قانون عنك الدنيا آخر ما أقول إلى هي وأنا قبضت عليك وحاسمك الدين واللي يقول لك إياه والله آخرية ومارتي الله يستمر قال كتبه إنه القرآن كما كفض رياه أما برديه بميش نيالو وحيا كل أشياء دوكتي تصوف كاسوحوها من انتشاري ووطن كاد وجرا حق مذهب كفقه أنا تعصب كمذهبي آدي بو الضراء وعالميا بأرنت الوجر ومذاهبتها أفرطها أيوم بمارتي نصوصها حواشتها فقه وحكوية لا حرف لما نعرف كرو isaga marka diin laga dhigayaa la bedeli karo lama leexan karo hatta wayadka marka loo laqbaynayo sheekhu soo akhriyay lagaba ka duwan hadaad keento culimada yani taqliidka xarfiga ah hatta laqadii buu galay arintaas waxay arin jirtay oo taariikh badan oo ummadda waqtiyaashii dambe oo dhan markii la yiri baabul ijtihaadka waa la xiray oo wax badan iska faafeen arintaas arin jirtay bay ahayd waa kiinkii xanafiga Abu Hafs loo oran jiray kitaabkiisa ku tilmaamay walaha la yanbaghi lil hanafi أن يتزوج بنته من رجل شافعي المذهب أن يزوج بنته إن أقول جواديسا وما بنان حنفية إمارة جواديسا من شافعي إن أقول يوم بنانا لكن سوى كقول سنكر أبي هذين قال كنا تنزلا من أهل الكتاب وقالين هل كانوا قبلنا يسرعوا وإسكبرنا أنت بقال كل هذين ما هل اسمه السنة شافعي ده صومالي مثل الشافعي يستقبلها تبع لكن ما يقولون واحد كلين ما يشلط أروح عن قرية برهان وجونا دوري طلعت كيف يهيد مساجد هذا الدنيا ومقالة كويا لا أو مساجد صالحية وهاي لهي طريقة الأورنشري بانين مصرية بان تشيء مالين جمعة مركون تشيء بسنكي بوكتجي مركي صلاة ربع حواد بيستاجي عند الصلاة دي وين جبرتي بسنكي لما آخرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر قد قام الصلاة دي ألاكم ummadii oo dhan way adkaa iska fadhiya carabka baalkii lagu tukaday salaad laha waa burtay salaadaas halkii baa duuray uu ku tukaday marka waxa weeyaan waaqicaan taagnaa way ahayd marka taasubku waxa weeye iyo taqliidku aad iyo aad ay u daraa waxyaabaha jiray oo kale waxa kamid ah fasaadka xagga xukunka iyo nidaamka oo wadanku deewaatimaanta laga waramayo ninkii waxa uu ka waramayay waxa weeyaan استعمار مركب ورهيستي وطنك أو قيب صدي مركب دمنا نك استعمار كما دجوميسي قولوا كتجي قال كهرين بكتجي مركب يجي ومقال كمسلم قال لكن مبادئ أفكار تقال كأنسان تأخذ يدو لبضم بيكانت واستعمار كان مددر بوده كيستي وطيق قيبية وطنك الصومالي الأورنشري استعماركو قيبته وقوي وكل كون استيد بقوليو هو استيد كمية من الصاق علي قيبتاً كونفورتا كونستيد بقوليو لبيع سجاشك إلى لحية سجاشك تقريباً 150 ملها وعويان ودي جيبوتي وفرنسيسكو هيستي وتايغ الغيبية قيبين تاس مركا انتو هيستي سيادي آدي مبادئ سوفافي
ولما وحا سفع عن وحوا قري من لورنشري حمدي سيد كتاب قرولي الصومال قديما وحديثا وأن مصري كتاب غازي وكتاب مهم وعاد الصورين أيام وهذا مدامان تواقع إنه كنا والله إنه كشف هيسان الناس مركو صوق على قال وضنك قبصري يا صاحب وقول سيء صومال واحد أوضاع ذو سيء وحليه هاي مركو تليان وصوق على منطقة وكوفرت أوكله وحليه قبائل هايستا وضاقة كده قال لما إياه ونفوذ كي يحون كي يا رير ما قبصته وقولوا هبل قولها كاتو وحد كي يقصوا حد قدبتي ويقول جايين بوليسي سلطنات دولة يريروا كره لكن بيرا إسكاء يو عين كاسة أيها القبصة يبولي تبالي سعني دين أخرين شعالي بعيدي ومما ساعد الإيطاليين على إبرام المعاهدات وقلت سنجبال يستيبا هشيس الله قالوا ماشي مركوري اللي أنا دنبابه حكا كوريتشي بقى بعيدي ومما ساعد الإيطاليين على إبرام المعاهدات هو وجود المجتمع القبلي القديم فهو المسؤول عما تطورت إليه الحالة في الصومال إذ كان وجود النظام القبلي وقيام التشاحن بين القبائل أو بين بعضها والأحباش أو التشاحن داخل القبيلة الواحدة بسبب الرئاسة أو من أجل الرعي أو السيطرة أو بسط النفوذ وغير ذلك من مساوي النظام القبلي الذي نتج عنه وجود مجتمع صومالي مفكك على صورة سلطنات مستقلة في تشاحن مستمر كل ذلك أتاح للإيطاليين أن يتوغلوا في البلاد باسم الحماية والمحافظة على النظام بجانب كوات سبحانه وقت ديفرت وأكو سوق على مركها نبت قليا دانوا إلى علينا نظام كانوا إلى علينا يونس صوت المحيطين وآخريا يا محين لي والله واحد استمدك سمس أمي صوم على يونس صوت المحيطين waxay leeyihiin de waxaan ku joognaa inaan waxba nabadgelyo ka shaqeynaynaa wada la haysto warqad qabsadeen nabadgelyo ka shaqeynaynaa amnigii baan deganayn kacaynkan waka marka waxa markii dal islaayay oo jabhad kaceen oo ilaahay xabada iska daalay way soo garan gaaladii marka arintaas waa arrin muhiim in la fahmo gaalku hadduu ku qabsadana mabaadiisu faafinaya nashaadaadkiisii uu iska wati waasta maanta iska furan hadda maxaan ka warhaynaa waa reer baa yaa kule yaa warhaya war ma hayna deeno maxaa ka socda wadankan maxaa badiisa ka socda maxaa magaalooyinkiisa ka socda maxaa shacabka dhexdiisa dhex guuxaya waxa socda fahmayno waxaan garan karnaa ma way xog badan ma hayno mar haddii meeshii la haysto rag baa ku shaqaysanaya ninka gaalku wuxuu sameeyay waxa la yahay madaaris tabshiir buu furtay oo ku faafinay kristaamayntii waqooyi bay ka jirtay koonfur bay ka jirtay berbera madrasada ka furaa lay moole meel ka furay manjacasay ka furay markay ka furay baraway ka furay ilaa kaniisad weyn oo aad taqaaniin muqdisho bartiga laga dhisay oo 1930 taqriiban ka dhisay kaniisada waxaa lagu dhisay dadkii xidhnaayo Soomaalida oo xiriir ku jiray buu 3 sano ku shaqeeyay kaniisada dhisay oo ku shaqeeyay ku xamaalanay qaal Soomaaliya waxyaabaha soo dhan waxay ahayd waxyaabaha uu faafiyay gaalku oo jawi bedelan oo dadkii la bedelay ay ahayd arrintu way bedelay oo waxay noqotay in si fiican mabaadiisa kale ee thaqaafada iyo maxaan ku dhahdaa tacliintiisa maadiga ah oo ku dhex gelinayo wuxuu rabana wax barbar socday haytaas oo nooc cilmaaniyada ah oo tabshiirkan uu ku soo afmeeray baa xagga waqooyiga taariikhdii ninka qoray aw jaamac kitaabkiisa leeyahay الصراع الصراع وقرب بين يعني الإسلام والنصرانية وكما قعابي أو جامع عمر عيسو رسالة في عن عرب قرن عليه هي كل سجال بقولي لبيه طبنكي أيا مقال بربرنيكي قال كاي هيستي ولا الدين الشروات يصوم على لو بيحكي سنة منارات صار مقال صار كأم بركنين كم كستفوري هو سكر عيل بيعني ما عنده حلو قفته يقول بيش كتير وما دي أمرك كعضون قال والله وقعي كعضون كاسا وحوك كان يحمل كل وايين إنه واحد لا يوحي تبشير كي هوش وديبه أي جبوت أوران مركب حويان برنامج كاس وحوها برنامج هيركل هيقارض هيركل يسي أفكار تضو كاسو بحي واجهته ومارت قاطي دينتي كبحي ومارت دير دوبي وحي هاي نوع كل علمانية ينا قرب صعودي ينا وي صعودي واحد بلان بي هاي
ونيل لو إن شاء الله لورد كرومر ومصر نكى مندوب كيساني الله صوت ريحة نكاسي ونك ديكو قولي شرق لو كان عالم الإسلام إنه سفي عن وفاء في مبدأ العلمانية ده وكيل هاين مركوي نك عروح الله صوت ريحة إنه حضارة أوكيانو ضد كان مدو أما أفريقيا كان أما ضد كان ملون كان إنه سفي عن إن هذا إلهي نكاس على صار عطانك مركاسي ونكسر مضى إنه حطره ويدين اللي بيحيوه وجهل جيدين كسره وأعطي مصاري الله إن زعمت بنا مزاعم كاذبات وما يغني مقال زاعمين زعمت الدين والقرآن جاء بما يشقي حياة المسلمين زعمت محمدا لم يؤت رشدا ولم يسلك سبيل المصلحين رويدك أيها الفاجر فينا فبئس الحكم حكم القاصدين نكاسي ما جينهم مالتي ظالم كها أرماء صورا وحكم ده موضوع اللغة العربية اللي هذه هذا أو لا دجال ما يقال ولا دجال ما وطنك سنفهم وح اللي قالك هارينكي أنت صوم الأحرى وكلمة كيمي بعدين لو شيء عند الويسكي ونينها يهودي أسف في هاي مستشرق نوها ومتخصصوها بالأدب الصومالي اللغة الصومالي وأضبرته وماري سوغانته يؤدي يقيني وهنا معلم كمعهد الدراسات الشرقية والأفريقية في جامعة لندن بوحكريتش نينكا سوى نينكا حروفا الصومالي نينكي قري دياري بها نينكاسي وحاد ورقة وحنقرني وحنهينشي أنو كتاب وقري وقري كون سقال بقولي كنتني لحدي وكتاب ديكشنيري أوكرا منجد مركب وحود دياريي dadka gaalada ee ingiriiska imanaya wadanka inay Soomaaliya ka bartaan kuntu ilixda Soomaaliya qoray kuntu ilixdi marka wuxuu sameeyay xuruf yar run boqoladii gudidii hebel galaal iyo majmuucadii markii dambe waqtiga dambe hawshay Soomaaliya aan qoraan diyaarnay waxa ma qorin wax qoran meesha mesela xarf yar bay bedeleeno xaad oo kale htbu jiitin korsaanay jiitin marka inaanay u dhawaaqaysadooda ay si kala u dhawaaqayso wixii jiitina shaqa dheer ay oran jireen meeshii shaqa dheerana wuxuu saaraya jiitin waxaad garaysaa inay tahay intuun bay maaragtay shaqa dheer ka dhigeen laba ka dhigeen waxay bedeleen laakiin ninka gaalka ninkii diyaariyay waa darwis badri buu wuxuu loo sheegay Sheekh Ismaan Sheekh Umar oo saarixyada madaxda dariiqada saarixyada oran jiray wuxuu anagu aynaba joogna oo waqti hore ayuu soo maray ninka isagoo xaaskiisa wata markaas wuxuu yiri Sheekh Ismaan oo xaaskayga kan waxaad ugu bixisa magac u bixi waaniga ka xiguu waa qudunquuta ma taqaan waa shimbir af dheer oo maaragtay af aso dheer bay leedahay marka qudunquutadii buu qortado qudunquuta marka ma aqooni wuxuu waad dambe dhowr isteetigan xamar joog soo raadi ninka gaalka warwaadka ayaa yaqaan xagee laga helaado xaafada afku degan yahay asar oo iska fadhiyo wuu halka meel guriga harkiisa buu yimid markaas uu yiri xaal baan ku sheeganay xaal oo ma dhacay تواجه ودي قبل حيجي قبل إذا حاسك ودي قاعد يقولون غوطة إذا عدي في صومالي وكالي تشيردو ما هي سجانتي وكابدي في صومالي كنكاس من قال أبوها لكن صارت هذا الصومالي وضد رقبة هاي والدفاع عن اللغة العربية حتى أسوأ شيء محن كل هذا وكعدي محن كل حرمة طبعا كم ده هاي وحكم ده بند قد قضب كشنات دستور قد وحكم ده اللغة الرسمية وضد اللغة العربية واللغة الرسمية إلى حتى قرآن دير وعلماء الشعب وإنكي إيطالياني أو قرآن أو إليهين اللغة الرسمية وضع كيغا واللغة العربية ويقول مثلا وحكم هذا الذي إننا نختار اللغة العربية اللغة الشعبية رسمية لهذه البلاد لأسباب الآتية إن اللغة العربية لغة الدين ولغة القرآن هنضر اللغة الرسمية واللغة الدين إن اللغة العربية لغة المحاكم الشرعية في جميع نواحي القطب محكمتها الشريعة وعلى وقع باللغة العربية إن اللغة العربية لغة التجارة والمكاتبات واللغة الكنعسية أيها قرالك وده بابا قرني تام سوالي لقرين وسوالي كان لقرين وحلو قرش عربي قام قرش شرو جروب أنا ما برعت شغنيه أرضي ما عتكلم شيء تبع ناينو وحنا هنا ما نسكش قيستو ورقان قراء وحنا صوت دران آخرنا وحيوان نوع هيد الأفسوالي ما كده ما نقدر شري فوق كي حكى نوع توري وكش قيسين شري باش مركب ما صوت صار مركب وحي هيد اللغة العربية واللغة وحلو قراء الآخرية الدكامة مركب العليبين الصادر الوارد وعلى كل قرية كارير
وحصل منك بخار كلي وجهجهية الصادر الوارد وحبو قولي الجملة ما أنتم حساب سكوتشيلا تطفى عربي هاي عربي بقولين كذا سمعت مركا عاد بيوقع هذين وحامركا ماشي يلا وضعي النوع عاص أو دين على أن بطخ من أمته والدين تدي عن دين في عن ماش قاينين وما رك تدغن كي عريقة يقاونان وشيء إسك عادي بيحد عريق وشيء إسك عادي بوها اختلاط وشيء إسك عادي بوها نوش النوع عاص صحوة إسلامية هي جو جالس كصوب حضي وحلوقة يمكن مراحله مرحلة ما قبل التنظيم انت نظامك جماعة نظامية أنا إيمانين خيركم ما دول قد بوجه أو ما هنا يجوا وريين جماعات الإسلامية هي محمد خير شاكا رجع علماء أفراد أيات شري ووضع كوفة في صلاة الشيخ نور علي شيخ نور الدين والله بحي السلف يحتال بحي يا رجلها المالوية شري الأفراد إن كستو الشيخ يقول لي سلاك كذا في الويس تي جانب اعتزالك وأفكارها قاركود وكامل سنة مارتي مثل المعتزلة وعقا كبيرة لكن وحوها رجعات وهل كمي توحيد كجانب توحيد الألوهية ويؤاد وهاللي أو بدعة يخرافة يؤاد ولا دجالمي مركا تاسوحين ما أربعينات كلا صوب بلابا إلى أواخر الحدنات أرنت أصلتي الدول وين بيك عيارين رجعوا لهم مركا صاوفر السنوي تشيلين أو وحنا نكرر ما قبل التنظيم بيهاي وحنا نكرر مرحلة الله بعد ومرحلة بداية التنظيم تنظيم مركو بروضي وحقوق الرئيسي حركة الوجه حركة الأهل أي واحد جماعة منظمة ورسن جماعة لا سأور رئيسي وحالات الزامنية ويجون قدودو بس وقت بقى هاي نوران كرا واحد في الشباب نيكل ورنشر وقوي أنا كدسنا حد مدة واحد بضينا كلا بس قصنا بيها هاي لكن بليكل وريبا لين هذا ما كان الله تاريخي مركا جماعة الأهل وكون سجال بقول يسجاي لحدا كي تأسيس كيلوها تقريبا إلى 700 تنكي تنظيم كاس وحوها تنظيم منهج كود إخواني هاي ولبا صوفيانا أي كل رنتهاي ونم ولبا وحيد هوست قوته لكن لن يرى فهميون إن لو باهي هاي ومدن ومحن كود هذا مدن كان شوعي كفافي وانحراف كقلي إن لو باهي إسلام إن لو صوت بارو معناها سيفهمين كتبتي إخوانك أو وطنك صوت الشينا ويا خريستين الشيخ محمد معين رحمة الله عليه ومركا حمر تفسير كأخرين شيء ونين شيخ كنت أعرف عنها وقفكوا إنه قفك خير كأسمي أو قراية اللي بهاي بني آدم خدع لك موادو معركتي وحوها لأن دورك واجعي لي وقت جاوحي شري دور وين كقاطبها جو شوعية وإلحاد لفافين أيوه تفسير كابلابي وحكوا على دليرتي كتاب كقرآن كا إنه كتاب لو رقم أيوه أو نرى أو عزية شرفت يسجل اللي هي وهو مساجد وسوق اللي دليرتي ويكون صورورين دليرتي كحرقون شرت ونك دليرتي مساجد كانوا قالوا حوار كأني تاي وحفشلها ومودي جوابات ما قول ما محد ربع قيسا يعني من دليرتي ما كان مساجد وديال جواب مساجد كل شيء مركب حوس تفسير مركب بالعبي ولا سياب ولا أنتم سوق شري كل كيسي كرفتي سوقات سؤال كيسي أو تفسير كلا سوق رست ومصحف سوقات وهذا هورين وعكا آخرين شرين جلالين إيو كتاب مارك حواشية وهيسن شريني يسووا مصحف كيف والله سوق ربحي ونك ريد مجالك خطرت مع دنيا تبغى شتى طاوشة قولي ونك ريد مجالك حضارك خطرت مع بيئة وصور فرستين وحبد المكبدي مركا هلك وحكا أبو رمي لأن يرى في عن ولبا سفي عن وطرح وناكسن ونين مارك تدقنوها الصومالي أنا بيلها الصومالي الوضع يكون هذا هو يقين ومركا آيات وفسر أيوه تفسير رنتي آد وقيابضا أيها والله قبض الصومالي كل أيوه يتوجيهين توقبحين أيوه وهو اعتماد شيء آرابا توجيهين تظلال القرآن كأيوه محمد كل هذا ابن كثير كأيوه كتاب تفسير المنار أو رشيد الله ورهايو هذا كتبنا عايز بكدي يرسل شيء مركا وهو هرنتي هلك وحكبر وضي جماعة الأهل جماعة داس وحا مركا ورا مدحون نقضي من عبد الكريم حرس اللي ورن شيء واسكو حقا اسكير صوفيها هذا مددي والغير بدلي من عبد القادر الشيخ محمود يلاهدو أي لو ورجع حلكي جماعة ستيل لقوا بالعواي بهاي نظام منظم أو أبابولا وحنقبا حل جاس عاد بأشقيين دعوة أذو قيام بدن وحل جا واحد سعودي وحوها
waxaa la isku haystaa ilaahay jiritaankiisa la isku haystaa oo waxa la faafinaya ilhaad oo waxa weeye qofka wixiisa loo qiraayo dhalinyarta waxa laga yaabaa marka waxa laga sheekeynaya ruuxan maxay oo adigu hadda waa shay bisil raashin bisil baa lagu dhiibay duruus ku daba dhacsan dumar xijaaban macaahid iyo jaamacaad wadaad kitaab akhriyaya duruus ku daba dhacsan baa timi laakiin arrin saamayn arrinta waxa la isku haystaa ilaahay ma jooga mise ma jiro arrinta ka tagay waxaan xuustaa xilliga waxa la daliishanaya ama kutubta maraajicda ah ee waxa lagu naqdinayaa waa kutubtii gaalada qortay way ninkani mar hadduu ku leeyahay ilaahay ma jiro xagee wax iskala bilaabaysaa oo quraan hadda soo daliisay wuxuu ku leeyahay anigu waxa carabiga akhriyayso shaqo isku malihi carabiga horta kuna ogolibadii ila marjicida way soo ninka doodaysa way haysaan horta marjicida way soo sugtaan aniga horta carabiga dab ku leeyahay ma baanisani ba maxaad u baahan tahay markaa ninkan wuxuu kugu la qanacsan yahay oo aad ku qancin karto oo lagu isbaatin karo ilaahay jiritaankiisa markaasan waxaan wax ka diyaarin jiray kitaab la yiraahdo la tarjumayo sayd allah wa tajalla fi asr al-ilm labatan gaaro reer Mareykan ay qoreen ba marjic noo ah oo nadariyaadka fiisigiska iyo xisaab ma qawaacid xisaabta ku saabsan iyo waxa maanta la diyaarinaya oo marka in la buriyo waxyaabaha ay leeyihiin wixii aan la arkaynin ama la dhadhaminaynin ama la taabanaynin ama la urinaynin ama la maqal ma joogaanba waxaan ustaa nin la yiraahdo Said Hawa oo ikhwaanka aba wuxuu qoray kitaab Allah jalla jalaaluhu qisa ku tiilay kitaabka marka wuxuu yiri qisa waa ka faa'iidsano wuxuu nin shuuciya ayaa wuxuu soo galay fasal buu soo galay markaas wuxuu damcay arday inuu gaalaysiiyo oo ardada ka dhaadhiciyo wixii aan xawaasta lagu garay aan joogin arday saburda ma aragtaan saburdu way joogtaa buuri arday miiska intuu dhaqaaqay sanqadha miiska ma maqlaysaan de waa joogaa miiska mar haddii sanqadhiisa maqlaysaan sigaari waxbuu shido urtiba ku buufiya ma urinaysaan sigaarka urtisi ma haysaan sigaarkii waa joogaa waxaas waday marka dambe wuxuu yidhi ilaahay miyaa aragtaan mada miyaa urinaysaan mada miyaa maqlaysaan mada miyaa dhaminaysaan may dema joogo intaa markuu waxa ku soo baxay buu yidhi nin daki oo dhalinyarta ka mid oo meesha fadhiya ilaahay wuxuu ku ilaahamiyey fahmo wanaagsan qaacidadii u raacay uu ninkan dhigay ilaa qaacid deji waxa lagu salaynaya markii dambe intuu soo maray wuxuu yidhi arday macalinka caqligiisa ma aragtaan markaas ayaan mada arday macalinka caqligiisa ma urinaysa mada arday macalinka caqligiisa ma dhadhaminaysa mada arday macalinka caqligiisa ma taabanaysaan mada caqliga macalinku joogo مش معقول هو تشوف هو كان صون وأنا عندي ميرك قبائل لبسنا وهرب كادي قاعدة دكتي مكتي قاعدة دي كبح قاعدة دي كبح قاعدة مركز دي على حكومي وهذا هو ما يسنتي مركز وإنت أبغى أن لقوا قرن أو مخلوق إلى تشوجا الله خالقه وها أن أنت منا لقوا قرين أبوري حد بدي يسافر مركز وتي ديلك عقل جانا دي أي مدهر واستعمال الشرين البعرة إنك رمي قام في البعرة تدل على البعير وأثر القدم يدل على المصير سبحانك مركا وحي برنامج كاس وحقيب كاها مركا إن الدولة هالكا لقى هذه مرحلة واحد دولة إسلام كانوا كحرنين لما الدولة وحن قضاء إن يدور وين كعيالين ثقافة أمة الصوماليين وواحد بدأني وحبت باديان وطلق عليه مركا وين لو قراءة وعي سبعين سعودي وكوكو كاها وتقريبا لحدي بيصدر العالم الإسلامي ووطن لو صدري إلى معركة صوص ما يصو محن كل هذا وربحين كسو القرآن بلوحي لو جبه هي أضو استدي اللي إحنا كي وحلا فري محن كل هذا معد كيف معروف كقيمة بدنا التضامن الإسلامي الأورنجي مع التضامن لبحي معد كسعودي أيا يعني فنجرين شري أرضي وحلسين شري 16 شرين ومركها العقد عاضو صريصة حمل 16 شرين وقادم شري أنا وقتها أرضي من براكها 2 شرين بابيل كيبوها وقوي مركز توقع قادم سنة كونفت لكن 16 شرين هذا بابيل شرين 16 شرين بيزين شرين أرضيها محن كل هذا وحكسوا بحي رجع علماء إيش عبد القادر وفارحي بكسوا بحي وحن في الشيخ في هذا كل يسون كمدها أدو قبل ما كسوا بحي ومركز دم جامعة لها قلي وحكروا كمدها مصاري كل يدو دور بيكعيان ثقافتها ومضى واللغة العربية أي دين توحكا بريكاريين أو ينا بعثة دويه الرئيس وصدق يقدم كي بيودك كي مادين ولي بهالكن كي قومني وضعهم قيبوا إنه قاتين
markii dambena macaahidda ay fureen macadkii sheekh cali suufi sheekh suufi la oran jiray sheekh suufi ee xamar ku yiilay iyo kii allahida u bixiyeen oo magacaas magac qadan buu ahaa oo isna maaragtay wuxuu ahaa macahad laakiin xagga midna macahad diiniya buu ahaa midna macahad cilmiya buu ahaa oo mawaadkan cilmiga abaa lagu dhigi jiray waxaa ka mid ahaa macadkii ka furaa burca ay ka fureen oo 1960 baa la furay macadka burca ku yaala oo isna macahad azhar buu tabac u ahaa sheekh suufi iyo ka burca waxay tabac u ahayn azhar oo imtixaanka azhar baa laga soo diri jiray oo halkaasaa ardadu markay gasho imtixaanka lagu soo sixi jiray azhar marka runtii dowr weyn bay ka ciyaareen oo thaqaafadii carabiga ahayd iyo ay ka geysteen marka jamaacatu ahli baynu ku jiray marxaladaasay ahayd waxaa iyana la socday waxaatu shabaab oo runtii waqooyigan iyaguna ka waday waxayna isku manhajna way ahaayeen isku maxaan ku dhahdaa zamanna way ahaayeen dhulkun baa u kala duwanaa aadna way isla socdeen oo marka qaarkood wax badan baa ka dhexeeyey oo ay isla wadeen labadaa qolo rumuustooda raggaa hore ehelka saxwadan hadda dee ictisaamku rag badan oo odayaashooda ahi waxay ahayd nimanka ehelkay ahaan jireen oo waxaa ka mid ahaa maxaan ku dhaha culimada doctoorkii dhintay allah yarxamo iyo rag fara badan oo sheekh maxamed ciise rag badan oo sheekh abdulwaahid xaashi iyo raggan hadda maaragtay saxwadan odayaashooda ah aalaaba way soo wada mareen qayb waxaa jirtay la ohan jiray naasixiin oo ciidanka ahayd oo thawraad baa adduunka iska jiray oo fikirkaasi ilaa hadda wayna xushan yahay dumarka wayna xushanta waatay lahaayeen marka fikirkaas ah in waxa la inqilaabo oo lagu soo boodo dalka la qabsado fikir waa hore bilowday buha marka annaga waxaanu ahayn qaybtii naasixiin bay u bixiyeen oo raggii ciidanka galay oo akademiga aan 75 galay iyo gruubo kale oo iyana maaragtay meelaha kale tagay Baghdad Ciraaq iyo Masar iyo meelo badan kale tagay marka gruub isku xidhan oo ciidanka ah oo saraakiil ah ilaa sodobeeyeen gaadhay markii dambe oo takfiirku baa kala daadiyay marka barnaamijkeegu wuxuu ahaa waaga thawraad baa iska jiray oo waddanka naftiisa inqilaab lagu qabsaday marka thawra islaamiya lagu qabsado waddanka oo la inqilaabo waxaas naga dhex guuxay taas marka waxay ahayd marxalad iska ahayd marxaladaas qoliyahan مثلا waxaatu shabaab raggii aasaasay waxaa ka mid ahaa ragga nool hadda aan ogahay cabdiraxmaan xaashi dubad oo nin jaamacatu madiina islaamiya ka soo baxay oo jabuuti ay wardameysay oo ku joogay waxaa marxaladaas waxayd markay dacwadda noocaasi kacday oo la dareemay kaadirkii soo baxay dhalinyarta ahaa aad u shaqaynaya oo jaamacadii iyo madaaristii iyo kacdoo noocaas oo dhalinyaro aad fara badan nidaamkii markaa jiray baqdi xoog loo saaray oo dagaal aad u daran ku qaaday oo xabis iyo xilxil iyo qabqabasho kala daaray arrintaas waxay keentay marka in raggii jamaacatul ahl madaxda u ahaa inay waddanka ka cararaan oo rag badan dabadda loo saaro oo sheekh cabdiqaadir aynu tilmaamaynay oo sheekha u ahaa markaa jamaacada iyo rag lamida waxay tageen sacuudiga ay tageen jaamacaadkii sacuudiga ka galeen nimankaasi waxay la kulmeen nimankii التكفير والهجرة الأورنجي التكفير والهجرة أي لا كل من هاي قاتين مبدئ التكفير أي قاتين وعلى التكفير والهجرة أنا إن هذا حكوا بتيم بالغيا أو رقم معرفة كرنا يوم كان دونا مركز ضغط جيل صاري وأبو الضراء يكيم مصر كتشي وإسنا أبو الضراء وضد إسلاميين تلقوا بهتين أياد مدامش أنا سكوافقين وده برنامج كودن waxaa ka jiray sala socotaanba shucuud aad u faaftay 15 waqtigii aad baash u shaqeynayay baaheed waxa soconayay in la faafiyo mabaadiidaas waxa soconayay in fanka iyo sugaanta aad looga shaqo galiyo waxa socday masrax iyo tiyaatarka in marka hawsha ay ka socoto oo maaragtay waxa la yiraahdo heesaha filimada wakalatul aflam wakaaladii loo jeeyay wakaalada maaragtay filimada Soomaaliya baa jirto filimada iyo waxyaabahaas loo jeeyay barnaamijkaas barnaamij shuuciyada ahayd oo shuuciyada Karl Marx baa laga soo guuriyay seeba loo dagaalami karaa Karl Marx waxa la yiraahdo i'tiqaadka ama aqeedada ilaahnimada iyo wax ku saabsan see loo dagaalami karaa marka hadal uu sheegay waxa uu yiri al-badil huwa al-masrah yani waxa ku mashquulisan masrah tiyaatarka iyo meesha maaragtay riwaayada iyo maaragtay filimka iyo waxyaabaha noocaas ku mashquuliya ummadda oo dhan marka ummad ciyaaraysa laga dhigay وواحد مارتي مهرجانات iyo wax liyaado ikhtilaal madaarista iyo jaamacaadka iyo caalamka kale haday ina suuraysan kareen oo umada lagu furay arintaasi marka runtii hadana shaqadu aad u socotay waa ta keentay marka in la xiro waa ta keentay marka Sheekh Maxamed Macalin oo ahaa
ninkii abar ruuxiga iska ahaa ee ummaddu ku soo weeraraysa la xidhay oo gudaha lagu tuuray oo sheekh cabdiqaadir nuur faarax iyo cabdullaahi xaashi rag fara badan oo culimadii markaa joogtay iyo qudhooda waa la xidhay arrintaas yaacaas wuxuu keenay markaa marxalo kale la galay oo fikrad kale la galay oo ah raggii dibadda u baxay ee madaxda jamaacada u ahaa waxay keeneen inay soo qaateen mabda'i takfiirka marka waa marxalatu istiraadu takfiir in la soo waarido takfiirkii iyo tasxiix juhuudi tasxiixa lagu bixinayayna ilaa 77kii ilaa 79kii bay qaadatay marxaladaas oo marxalo aad u khatar bay ahayd oo dhibkeedu badnaa oo maxaad u maayday jamaacadan oo dad fara badan tajniidisay oo dadkii madaxda ahaa ay inxiraafeen halka waxay mulaaxada mudan in dadku ay cilmi wax bartaan oo diinta barasheed diinta wax lagu hayi kara nin wax garanaya ayaa ummadda sixi kara nin aan waxba isla haynin si yar baa loo lumin karaya nimankaasaa nimankii helay waxaa loo akhriyey kitaabadii sayid qutb kitaabkiisii macaalim fi ariiq iyo kitaab leh mustalaxaat arbaca fi lqur'aan oo nin leh abulacl mawduudi oo bakistaaniya oo qoray oo alilaah walrab waldiin walcibaada farqodob uu kaga hadlayo waxbaa la isugu geegeeyey muxaadaraad baa loo diyaariyey nimankii iyagoo la buuxiyey baa lasoo diray xaar baa laga soo dejiyey muxaadaraadkii ummaddii baa loo akhriyey oo laleeyahay ummaddani waa gaalo oo mar haddii aanay sharciga ilahi isku xukumaynin waxa meesha haystaana waa gaaloobeen waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaa'ika hum lkaafiruun waa gaalo oo dadkan kale ka waran iyagu shacabkaana shacabkuna ma dhaamaan waa iyaga qudhoodu way ku raaceen waxay isku xukumayaan bay u xukun tegayaan welihii bay siinayaan waxa weeyaan waa la socdaan wa in atactumuuhum inakum la mushrikuun marka iyaguna waa gaalo kale oo haddii markaa la gaalaysiyey madaxdii shacabkiina ina waa raaciyey waa madhabkii khawaarijta oo khawaarijta min bay haysiye layahay jiradoo idaa kafara alimaamu kafarat iraciya haddii imaamku gaaloobo raciyaduna waa gaaloobeen waa madhab marka madhabkaasi ku socdaan oo ma kala fogaa asaaliibtu ma kala duwan mooyaane laakiin meel kale ku wada shumayaan oo dawaa'ifkan takfiirka hadda jira shabaabka naftooda markaad eegto kama foga arrinta kama foga oo haddaad tiraahdo oo iyagu shacabka gaalaysiin maayo waa la tukanayaane seebaad u diidan tahay mar hadday ka xayuubiyeen xasaanadii ummadda waxay leeyihin shucuubtu waa iska islaam laakiin daartu waa daaru kufr mala socotaa waxay leeyihiin meeshan soomaalida meesha laga xukumayo halkan federaalka halkan waa gaalo waa murtadiin halkan puntland waa murtadiin somaliland waa murtadiin waa wada gaalo haye soo gaalan marka mar dalku dal gaalay waa daaru xarbi oo waxa doonta ku qarxi waa la beegsan karaa marka ninkii daalimka meesha ku dil waxa doonta qarxi marka maxay islaamantay ma ku meed ku badbaadaysa mar haddaan isku badbaadinay oo markaad cid qarxiso mabda'aas ku socdaan waxay leeyihiin meeshii meel xasaana la maaha meeshii waa daar kufri weeyaan waxaa doonta ka samee maalkooda oo dhigooda baraysan kartaa waxaa xoolaha dhici kartaa gaalaa meesha ku urtay marka isma dhaamaan waxba yaanay maaragta hamoodin in ay waxaas dhaama ay jiraan waxun waa la odhan karaa in yar bay ka yar sokeeyeen laakiin xagga mabaadida way iska mid oo takfiirka waagaa jiray waa takfiir oo hijra la baxay oo jamaacatu muslimiin la baxay baqaayaadkoodu nimankaa waa lala dagaalamay oo tasxiix afkaartoodii oo rag baa u guntaday oo kutubtii laga qoray baa la keenay oo maxaan ku dhahdaa kutubtii qadiyatu takfiir muslim naxnu ducaatu laa qudaa oo waqtigaa kitaabadii waqtigaa soo baxay yiilay nin xasan hudaybi la odhan jiray iyo risaala uu qoray iyo kuwaasoo markaa yiilay baa la akhriyey nimankii si fiican baa loo jafay iyo ragga culimada sacuudiga ka yimid jaamacada sacuudiga ka soo baxay ama fasaxa ku joogay dood dheer baa laga galay nimankii fiifkooda la goyey baqaayaadkoodii waxaa kasii jooga ninka leeyahay amnu hebel cuthmaan ee qarra fadhiya iyo ragga majmuucadaasi waa takfiirkaa hore bay kasii hareen taasi marka waxay ahayd marxalay ahayd marxaladaasi takfiirkaasi marka uu soo afgo-ay waxaa loo soo gudbiyay marxalo taa ka dambaysa oo marxaladii tabani manhaju salaf la tabaniyey oo jamaacat اlahl markay saa noqotay wixii ka baxay takfiirka diiday iyo manhajkaas baa waxay ku urureen aljamaaca alislaamiya bay samaysteen jamaca alislaamiya waxaan filayaa 80 meel taqriiban ilaa 80 bay taasiiskaas u jiray yani u samaysnaa ilaa 80 ba dheh oo markaa waa meeshii fufkii u horreeyey manhaju salaf ay markaa waddanka ka soo galay baynu odhan karaa jamaacadaasi weli manhajka ikhwaaniga waxuu kasii jiri karaan laakiin raggii jamaacadaha ka yimi madiine iyo maka iyo oo meesha markaa manhajkan ta'siiliyey oo doctoorkii ka mid ahaayeen
wax badan baa markaa la hagaajiyey oo la saxay markaa jamaaca alislaamiya ee la baxday waxaa ka sii jiray markii ay manhajkii salafka la qaatay qolyo markaa shiikha ku dambeeya oo sheekh maxamed macalin oo isagu markaa weli haysta afkaartii ikhwaaniga ahayd baa rag baa waxay dhahdeen sheekhi baa la khilaafay marka anagu manhaj salafiyaa la keenay wahaabiyaa la keenay rag baa marka xagga u baxay oo iyana waxay la baxeen wixii la odhan jiray aalu sheekh nimankii la odhan jiray halkaas ku hadheen jamaaca islaamiya marka waxaynu odhan karraa waa jamaacadii u horreysay ee qaadatay manhaju salaf haddii uu doono waxa ka dhinaadeen laakiin ru'yada iyo mabaadida ay qaateen saasay ahayd jamaacadaas runtii way shaqaysay waqooyigana qolihii waxba isku urursadeen kudhow isku dubariteen takfiirka iyo waxa waa laga badbaaday waxaa lagu urursaday taladii sheekh cali warsamo markaa ka yimi isagu xaggaa oo maaragtay jaamacadda kasoo qalinjabiyey oo muddo joogay in xilkii lagu ururiyo oo shiikhii jamaacaddii waxaadda marka madaxda looga dhigay buu noqday arrintaasi markay dhacday oo qolihii jamaaca alislaamiya ay maqleen in halkaas sheekhaasoo dee markaa magister haystay nin sheekhu caaliman ahaa baa waxay dhahen war alla ila halkaas maanta ka nooshahay aynu wax isla beegsanno oo wax isla doonno oo dadka midayno nin la odhan jiray cabdilcaziz faarax raxmatullahi caleh oo dhintay ayaa aad arrintaa ugu shaqeeyey aad buu uga shaqeeyey runtii taariikhdu way isqoraysaa waaqacaas in laga shaqeeyo waa muhim anu markaa 82 yeman baan joogay yeman buu igu yimi isagoo taladaa wada oo yidhi haddaan jamaaca islaamiya waxaan rabnaa iyo nimankii halkaas sheekhii sheekh cali warsame ku ururay waxaadda ahaa inaan wax isku daro sheekha madax ka dhigano marka aniga wuxuu iga waraysanaya sheekh cali iyo anigu burcaan joogo halkaasaan garanaya warbixin buu ka qaatay tala ahaan iyo kaas halkaasuu nagu soo maray 83kiiba khulaasadii waxaa dhammaatay isu imaatinkii la mideeyey waxaatu shabaab oo sheekh cali warsame madax ka yahay iyo jamaaca alislaamiya oo maxamed ciise madax ka yahay baa damji lagu sameeyey waxaa soo baxay alitixaad alislaami oo madax ka yahay sheekh cali warsame naa'ibna uu ka yahay sheekh maxamed ciise waxay ahayd 1983 ilaa 1991 waa casru dahabi baan odhan karaa casru dahabi saxwada soomaaliya waa xilligay ugu fiicnayd baan odhan karaa sababtoo ah israacaas wuxuu keenay manhajkii oo manhaj aad u qiimo badan noqday oo waxoogaagii kale ee maaragtay laablaabkii laga baxay oo rag culimaa ay markaa majaraha u qabteen iyo sharaa'ixul mujtamac oo runtii dacwaddii in badan kusoo biirtay oo cid kasta oo dawladdii iyo wasaaradihii galay oo xaggii tacliim wasaaradda tacliim ha ahaato ciidankii ha ahaato waxaan ku lehay meel kastaba dacwaddu way gashay meel kasta marka waxay noqotay dacwo aad u yaab leh oo qiimo badan oo aan ku kaaftoomin oo keliya soomaaliya gudaheedee waxay soomaali weyn odhan jireen oo jabuuti iyo etoobiya iyo kenya iyo meel kasta tagtay oo jaaliyadihi dalka carabta ka daba tagtay saxwo aad u ballaaran oo casru dahabi ah oo manhaju salaf ku shaqaynaysa oo tashanaysa oo shuuradeeda leh oo shirarkeeda go'aamadeeda leh oo maxaan ku dhahay si maftuuxa u tashata oo dadka madaxda way yihiin dadka waddanka marka ugu aqoon badan dadka ugu aqoon badan kaas bay ahaayeen dadka madaxda u ah ragga ka maqnaa oo xitaa aan iyagu markaa jamacada ku biirisay sheekh maxamed sharif cabdinuur raxmatullahi calayhi wuxuu ahaa la taliyaha weyne jamacadka oo shirarka lagu yeeray waa soo dhexfariisay shirka loo baahdo oo sheekh maxamed nuur qawi ayaa ka mid ahaa oo raggii maaragtay goobaha iman jiray xitaa mar la soo jeediyey isaga ha loo dhiibay xilka ay xitaa ahayd taariikhda waxna soo maray ahayd marka jamacadaasi oo ah jamacaddii salafiyada ahayd ee waddanka manhaju salaf gelisay runtii waxaan qabaa wax aad fara badan bay samaysay oo khayr badan ba ay samaysay taariikhdaa dheer markay soo waday muddo waa tii waddanka burburay oo lagu kala yaacay dunidii dalku markuu burburo oo fitani dhacdo laa shaka innagu waxaynu ummaddaynu ka mid nahay bulshadaynu ka mid nahay khad aan la waayi maayo ummaddu markii hore oo isku duubnayd waa la kala warhayey waa la wada joogay markii la kala yaacay oo qololo reerkooda la qaxday ummaddii la kala diray dhib badan waa iska yimi mucaskaraad baa furmay ciidamayn baa la sameeyey dagaalaa la galay akhtaab badan iyo wax badan baa la galay oo dee waxa weeyaan xaaladaha waxay la tahay waa la wada socotaan idinkaan idin dayn doona insha allah wixii su-aalaha ka qabtaan iyo hawl hadda hoos ku dhaadhici maayo idinkaan insha allah u ciil qaba inaad su-aalaha halkaa ka keentaan waan idin dayn doonaa marka wax badan baa iska dhacay waxay noqotay haddana muraajacaad in dib loo sameeyo oo wixii akhtaa dhacday ee dagaallo la galay iyo arrimahaas oo dhan waa la soo afmeeray waa la soo afjaray 1993 baa la khulaasiyey barnaamijka mucaskaraadka iyo hawshaasoo dakhiil runtii ahayd wadama taabto dakhiil bay ahayd
وجماعات مركا وما ديار سنة مشروع يدو سميستي وأبابلتين ما يهين نمان اللي يرى ورقة قاركو أفغانستان كي مادين أي ديرتي قحة هيد كسماية ميلا سعودي وما دي قحة هيد با أي محام كل ورقة وسعطان ويكون على استحريه وتبرو سميستي ومركا هالكاس هوش قبل عوضتي واددنا وحينا والبركة علينا وعصوا قبل كرتان صور ريبا ورشوجاي ركبة شوي تعليقين دونا وفديه وقتها أنا وقتها أيام بمن شوقي لكن وركو يسوق عليه أي داعي حتى مركب علماء دي مادين ماشي معسكرات كانوا مسميني إن عناوين محاضرات لو تقول لي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ومركب مادين شغال ورسمه شغال غادر نور فرح شغال ظاهر ركبنا أي مادين رياضي من كتير كلا ركبة حركة حريستي أرمى دباتك كنعرة وراكها لنا بامركي يلونك هوش وتي بايس اسمه أحمري مكان إنما كلمة كفوتشيا وضيعش ناس كعيرية هوش أنا حيلت هاي تعليق إذا ركبنا ندين دونا سكست بهات برنامج كاسي وصاف شرمي وحي عيدا أي جماعة الله هيد وعلى حال افتين بالغ الشاي مالين بايضو قوب ونكسل لو كلا تجيد يقول دي ليس يجي بس حرق الله كلا درا وليني وروبا مقالة أتكتمي دعودي ماشي إنه هوش إنه ودني أول هراء بعضهم نقول يسا يضو كلنا نوعينا الله يسطو وضرب حفظ الله قبسان كارو أي اللي أرنتني صح معها فتاود العلماء أي ماذا يتشكيل مكان البديهي بس حرق الله كلا درا صدق يا سكاش كي بيهي شركة أفريقيا سكاش كي مقدشة دعي وجماعة عيان تيودون بيسوي مادين وهاي هيدرونتي ما أختي مشهودة بينا هي تاريخ له وقال له شيء أرنتاس وميلا صاري إن أنا صانون ورجع حتى معسكرات يا ولا ودي يقولوا ده لقينا حولي كم صانون كران ما ممكن وحق قبطان كي رجع معسكرات كاي وقامين يجي أرنتاس وحين نقطة أرنتاس كل ما تبي هيد وإلهي سبحانه وتعالى ونقول يجي وح اسكسوا دو لحية سجاشن كي تاريخ مركي هيد وحا مر لبعض الطنية وجماعة المبادئ ذي كم دهيد إنه مطلع مديئيو وجماعات الإسلامية مر لقديه ومنهج كاسترف كالغوروريو وحبا أنا كبدعين هل ميال الغورة الصعودو مبدأ قديم أيها ما كستبان السعودي وحي هيد كون سقال بقوليو لحية سقاشن كي لا سعانو ضد مقاهدة أفردان بيه هيد أرنتاس دي كد عضي إن دمجوا دعي واتحاد كي التجمع الإسلامي الانقاذ وغوية كدسنا يانا مركا هل كان لقوم مديئي وحصوبحي جماعة الاعتصام بالكتاب والسنة هيا كل سنتي مقاهدة هذا أفردان لحية سقاشن كوعلوم سقوطمي وصفي عن مركا وحيابه مراجعات كدعينا لو تأسيليي أولي نقطي مركا إن دعوه لغا شقييه ومعاهدة يا جامعاتك يو وحي كلا مالت لقبان كور وما تخيل لو قبان كور لغا شقييه أرنتها أساس أي كوير كشيء وحنقبا جماعة إنay إنجازات فربدن أي قاعدي وتاريخ ده دير سعود سعودي ووحكا رتمية ومدي ولا بدل بين أوران كرا وتدين كود وحين نقدين دد متدينين وانحرافات ولا صح ضليرة المعد كودي ينقار كود وحن ويديا وريا ولي أركي بابور ميل طوان ولا زيارة والله بحب التموين يقرب هالك مرة يسوق صدق مرة نافته كود تموين هالك شلادية ورصدق مرة رجنا ورما أركي استعمل بابور تاجن ولما أنتم على قوانين قبل هبل يأري حوالي القلعي ولي ما ركتين ما يبيله ديارتها سوى إسكان جرتي أرن أسبوع ليه والدولة دي حتى حمر وحكي إعلان جديد إذا عليك سيدين جرتي بريته وحاجة تبيوله بقى اللي تجي دونا صاد ما كسر تجي دونا حاجة مغوي أو كباريو محل منشري أو برخليو ولا سعر منشري أو مركز بابور طبنانك قاري طبنانك مارتي بابور أرجع لوسيد إيو وحصوره وحص والله الأفر وانحراف كديني جاها اعتقادات كاميشة وكبحي نيجي قال كهرك أنا ما أدق بالجلي ونمكي يجي شكيني قال يا دكتور أحمد عاجب كشكيي وعيني واجع دود ما ضايل هاتي لحنكي هي شيخنا العالي علبة وتجيني منكم عورين مية وواحد يشان والكتاب يسكون حكومة شرع علاقات وكم بيجي شكيي الواد وحفامي حلو حنليه الواجع واجي ساسا وحنليه واد كبر مسكين من هاجي وهذا اللي وحلو اللي كان وقال ولا إن الله وح يعني قرصي يعني انتي أو وحن ديبا مارتي وحن بقية يصدق هذا ونمن علماني دي بالك الشيء أو وحكي لقد عليه شكاس وين ماتي أنا مر كتاب أنا كنت شري تفسير وكوان وكنت شري بقى متبقى يسوع فريسترو شو بال علماني وجوعي لأنه علماني ميتنا رجع
برلمانان تكنيه دولتها نسكا مالتي قرآن خرسانية حاسمة علمين حق وريتين حمد نارك وكتاب كده يستمعين دبوليه وحال خيسو وركا صح ما بقول كتاب كان حون كي وحن كهذا وركا وفهمي ليش أوصل فهمي دين تلسق حكم القاضي الشرعي حولي صح معها وحصوني أنا معها أرنتاس أرين صورة كلام معها أي سودك تشرع عدني أنت صبور أصلا تقول كن إزياء صنا بيت ضدك وحير بوها إن يرسل سيهيد عالم كهذا حكم مريم حط بشيء كان تشوج مقاطع طنين أنا مركز يقول بهذا تسلوج مركز وحان ده وين أوشي بالتفسير كانوا ويا كان شو نيكم والله قاعد حلا إياه نيكم ده مقال صوماليات بولية وأنا دت كيني لكن والله قاعد حلا إياه إد ما كان توصل نيكم بل نيكم كم واحد قاعد حلا إياه إنه فهمني بالواحد يشان محاضرات بينو بلاوي إنه واحد غزو الفكري بنصوب بلاوي ما يدحمل كان بينو ناقع عمال الدم هو اسمه كان تطبيق شوفنا ما يدقق مركز علمانية ولا قاعد تخلص بابا ولا قاعد مرة ما يسولوا حاسي شو مجالك تعليمي جاها وهي قاضي صحوضه تغيير يابنا كصبيس مجالك تعليمك وجامعاتك يا معاهد يا واحد الصعداء تحفظ القرآن هلا تهيدي سجى شيء ما ينو إلى محن كل هذا ميل كسته رجعت بدها تشوجا يرى قدك بديس تشوجا ميل كسته خير كان تعليم وكصعداء وحن قبائل نجاح وين وثمارتي الأوليان يصحوا كان طيب قطاع خير جاء يمارك مجالك إغاثية وحبضن بك قلتي ومارك ديالك لقينا قرصن كرينين مجالك مصالحات كقبائل أو مركز ضرب بربري وقبائل بدن سكول عين وهو رجال الصحوة وحبضن بك قبتين وحبضن بإليك عنده كل بدبادية بيلها يرير إسلاي إذا أطلع عضي ومصالحة بدن بيكلين مجالك مركز لقاه لي تجارة ده وهو يعني تجارة وطنك وعد ودا هذا لقى شفية واددي لأن كانوا يضبطوا عاي وشركات كان عملاقة شقينية نوع تلفوننا كانوا دوان معهم كل وحيابا حوالاتها كانوا دوان وحصلوا واحد نودا إني رجي دعوة نسحوا نصوص صارتي أيام مركز عندك وهي وثمارتي كم تاي وحنوران كرا إلى لقى زعامات اجتماعي جها ومارتي سلاطينيو جرادي رقم ضحى باقصوا بحي شقادي مارتي سدة الحكم حق قبائلك وإنجازات كده كم تاي هذا إذا نقول طفيرينا حاجة سياسة ده ينبغي نقول ربع دي وزراء كانوا قضيوه إسكاب شقتك يعني قلنا ذلك بحساب سيد أنا كم لاحظ هذا هذا إنما قاعد معي سكر لينيو ما توركني ركبك هذه لكن من كاسي ده وحب سكر ليا نك ماشي أكو شراء وحب قمرية يعني نك وحبكم مكان وحبكم دوجن يسوي شيء سياسي أنت بهذا دونه لكن هذه وحلا جيابا إن واحد بدنا نكون ترى وصورة قبل بتكفي يديسته وحكم ده إن نقول كر حجاب كي oo shay maaragtay aad loola dagaalamay taariikhda dheer wadanka kan oo waagi hore madaarista iyo jaamacaadka aan laga ogolayn xijaab wax la yiraahdo oo gabadha markii xijaab loo warka banaanka loo tiro qaar badan ku shaqo beeleen oo qaar badan jaamacadda ka tageen oo qaar badan madaarista sekondariyada ka baxeen qaar badan guriyooda ku fadhiisteen waxay noqotay markaa mijaal hadda iska furan oo baadiyaha markaad weynayso waxa dhici karta inaad aragto gabadh xijaaban oo dhaana wada ama gabadh xijaaban oo ay la joogta aad bad u farxaysaa markaad aragto dareenka noocaas oo kale ah waxa weeye markaa waxaan qabaa khayr badan baa dhacay naqsina waa jiray oo salbiyaad u dhiisu jiray oo saxwadu ay gashay waxaa ka mid ah waxaynu ka hadlaynay oo dagaaladii ayaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa maalan waxaan had iyo goor dadku fakarkan inqilaabiga oo iskaga abuuran oo dadku maaragtay daayarta weli qaar ku sii jiraan fakarka noocaasa oo inuu maaragtay bal si yar wax loo qabsan karo oo si yar lagu soo boodi karo xukun oo meesha waxa laga saxayeeyay xukun in lagu soo boodo oo arintaas oo qofku aanu aad u tixgelinaynin hadafkaagu muxuu yahay maxaad tahay adigu bulshada maxaad ka tahay maxaad awood leedahay sunnatu tadarrujka ilaa habeen kale ilmuhu intuu dhashay iskama kacee wax kasta sunan kawni ay leeyihiin maxaa hadda haboon cagta xageen u dhignaa hadda xageemaynu bari xageen tagaynaa waxyaabaha noocaas runtii in badan hadda la fahmay لكن أخطاء هذه الصومري أي هيد يضم حتى الله يعني مركز قاركود مراعاة المصالح والمفاسد أو ذلك قاركود ومركز بابك على قاضو وطاغوت يكون مقعابين أو سدنه دي وحد أي مار ويجليان أرمان نوع عاصف على غيا بين تاي وحيابا خلطات كا الله قري تعصب ويسكتشري شري إن قصدوا هذا قل يكره تعصب لوريجي لكن جماعات قولوا نوع تعصبه ومحن كراي جماعته تنظيم ووسيله غاية معه ووسيله مجموعة يسقور رصتي أو يسقور رصتي دين تيهين وشقيسه
laakiin wax ma aha maaragtay dee kaba dhibcaana oo inta aan halkaaga ahayn wax kale aan ictiraafsanayn sax maaha marka tacasubkaasi waa uu jiri jiray laakiin waxaan qabaa bariyahan dambe mawduucaas waa laga baxay qola kale la wareegtay baan qabaa idinku waa garanaysaan insha allahu tacaala idinkaan idin dayn doonaa inahaasaan iska soo gaabinaya waa iska oday sheekeenay odayaashu markay muddadu soo noolaadaan waxaa ka hadha sheeko maxaan usoo joogay marka maxaan usoo joogay sheekooyinkaasi inahaasaan kusoo gaabinaya jazakum allah khayr billahi tawfiiq subxaanaka allahuma waxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk